wararka suuqa kala iibsiga ayaan u galayaa iminka. Kooxda Atletico Madrid ee dalka Spain ayaa kula dagaalamaysa dhigeeda Manchester United. Ciyaarahanka caalamiga ah ee weerarka ugu waa ciyaarahanka qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta ee Borussia FC Mönchengladbach Dennis Zakaria. 22 jirkan ka soo jeeda xulka qaranka ee Switzerland ayaa wacdaro ka dhigaya marka la eego tan iyo markii uu ku soo biiray horyaalka Bundesliga, waxaana uu kaga yimid kooxda Young Boys 2 sano ka hor, waxaana uu soo jiitay indhaha kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub. Waxaa Atletico Madrid kula dagaalamaysa marka la eego si ciyaarahankaasi kooxda Manchester United. Manchester United ayaana u aragtay ciyaarahankaasi bedelka saxda ah Ander Herrera ka oo xagaaga ku biiray kooxda Paris Saint-Germain ee dalka Faransiiska. Diego Simeone ayaa sidoo kale doonaya in ciyaarahankaasi uu ku xoojiyo qadkiisa dhexe, waxaana uu arkaa mid wax badan ka bedeli kara hanaan ciyaareedka kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Dhanka kalena haddii aan eegno wararka kale ee ugu waaweyn dhanka suuqa kala iibsiga, waxaa qayb ka ah kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo ka mid ah marka la eego kooxaha ka ciyaara horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League. ciyaarahan ayay ka doonayaan marka la eego kooxda AFC Bournemouth, waana ciyaarahanka lagu magacaabo Cook ayay xiiseynayaan kooxda kubadda cagta ee Liverpool. ciyaarahanka qadka dhexe ee Lewis Cook oo Cook lagu magacaabo ayuu aad u doonayaa tababare Jurgen Klopp, waxaana Klopp uu doonayaa inuu ku xoojiyo safkiisa. majalada caanka ee Liverpool Echo ayaana ku waramaysa in ciyaarahanka laga yaabo inuu ku biiro kooxda Liverpool suuqa Janaayo, maadaama kooxda AFC Bournemouth ay ka mid tahay kooxaha iska meelxaadka aanu ka qayb galin tartamada Yurub, waxaana Jurgen Klopp ciyaarahankaasi uu arkaa AFC Bournemouth qadka dhexe u maaraya in wax badan uu ka bedeli karo hanaan ciyaareedka kooxda kubadda cagta ee Liverpool. dhanka kalena ciyaarahankii hore ee kooxda kubadda cagta ee Leicester City Islam Slimani waxaa loogu gacan haatinayaa horyaalka Faransiiska, gaar ahaan kooxda kubadda cagta ee Monaco. ciyaarahankan weerarka ugu dheelaya kooxda kubadda cagta ee Leicester City Islam Slimani ayaa ugu biiraya kooxda kubadda cagta ee Monaco 7.8 milyan ayuu ugu biiraya, waxaana Leonardo Yardim uu doonayaa inuu ku xoojiyo safkiisa ciyaarahanka heerka caalami. 2016 ayuu ku soo biiray marka la eego kooxda kubadda cagta ee Leicester City ciyaarahankan, waxaana uu ugu soo biiray 29 milyan. Sporting Lisbon ayuuna ugu soo dhaqaaqay kooxda ka dheesha horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League. 31 jirkan ayaana ka mid ah marka la eego weeraanadii ugu fiicnaa ee kooxda Sporting Lisbon, inkastoo horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League uu ku jahwareeray gaar ahaan kooxda Leicester City oo uu u ciyaaraya marka la eego muddo uu ka tirsanaa kooxdaasi kubadda cagta ee Leicester City. ciyaarahanka Algeria ee ninka lagu magacaabo Islam Slimani marka Faransiiska lagu gacan haatinaya ninkan lagu magacaabo Islam Slimani, waana macquul inuu aqbalo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Monaco. dhanka kalena kooxda kubadda cagta ee Manchester United ciyaarahankeeda da'da yar ee James Garner waxaa markan aad u xiiseynaysa kooxda Preston North End lagu magacaabo, iyadoona hoggaan ku haysa ciyaarahankan doondoonista ama badigoobka lagu jiro. 18 jirkan ayaa oo qadka dhexe ka dhila ayaa Ole Gunnar Solskjaer uu ku soo daray shaxdiisa fasal ciyaareedka, waxaana majalada caankeeda san ay ku waramaysaa in kooxda Wigan Athletic League 1 kooxda ka dheesha ee Sunderland sidoo kale aad u xiiseynayaan, inkastoo ciyaarahanka uu ku dhow yahay inuu ku biiro kooxda Preston North End kooxda lagu magacaabo. si walba ha ahaatee ciyaarahankan ayaa caaba u ciyaari kara kooxda kubadda cagta ee Manchester United kulanka ay ku wajahayaan kooxda kubadda cagta ee Preston Belgrade tartanka xiisaha badan ee UEFA Europa League. dhanka kalena kooxda kubadda cagta ee Manchester United weli waxa ay baadigoob ugu jiraan marka la eego bedelka saxda ee Romelu Lukaku. weeraryahanka Croatia ee kooxda Juventus Mario Mandzukic ayaa mar kale la xihiirinaya kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Mario Mandzukic ayaana bartilmaameed u ahaa tan iyo markii uu ka dhaqaaqay Romelu Lukaku kooxda kubadda cagta ee Manchester United. wararka ugu dambeeya waxay sheegaan in ciyaarahanka caalamiga Croatia uu aqbali karo inuu u dhaqaaqo kooxda ugu guulaha badan Ingiriiska. Mario Mandzukic sidoo kale waxaa loogu gacan haatinayaa horyaalka Qatar ayaa loogu gacan haatinayaa, inkastoo laga yaabo in ciyaarahanka uu iska sii joogo qaaradda Yurub, gaar ahaan kooxda Manchester United inuu ku soo biro ayaa loo badinayaa.